walaalayaal Yaasiin Cabdi Xasan waxa uu muddooyinkii u dambeeyay ku xanuunsanayay magaalada Hargeysa waxaana la soo daristay xaalad adag oo caafimaad darro oo baahsan kadib markii ay labada kaliyoodba fadhiisteen Yaasiin Cabdi Xasan waxaana xanuunkaasi kaliyaha ka asiibay uu ka dhigay dhulyaal aan waxba qabsan karin isla markaasina aan joog iyo jiif midna aan xamili karin xanuunka haya awgii walaalayaal Yaasiin Cabdi Xasan waxa uu xanuunsanayay muddo 8 bilood ah waxayna bahda caafimaadka Soomaaliland ku taliyeen inuu u baahan yahay in loo qaado dhakhtar dibadeed si xaaladiisa caafimaad wax looga qabto walaalayaal Yaasiin Cabdi Xasan waa aabbo danyara waxaanu kaligii u xoogsan jiray qoys ka kooban 9 qof waxaana muddadii uu xanuunsanayay qoyskaasi la soo daristay xaalad nololeed oo adag oo u baahan in loo gurmado qoyskaasi waxaana xanuunka Yaasiin Cabdi Xasan iyo guud ahaanba xaaladda adag ee qoyskaasi soo wajahday muddadii uu xanuunsanayay Yaasiin Cabdi Xasan nooga warantay Ifraax Jibriil oo ah xaaska Yaasiin Cabdi Xasan wuxuu xanuunsanayay Yaasiin Cabdi imika muddo 8 bilood ah xanuunkiisa waxay ku sheegeen kaliyaha shaqayneen imika dhibta ugu weyn waxa weeyaan kaadidiiba kama imanayso kicid male suuli ma galayo cuntadii ma shaqaynayso awoodna uma hayo awoodeydii inta uu dhaafi weeyday isaga noo miciinaha waxaan ayaa 7 caruura marka ummadda muslimiinta waxaan ku codsanaynaa inay soo caawiyaan ilaahay dartii ugu soo caawiyaan ninka waxaan gacanta ugu hayaa ma jirto dad iyo duunyaba ana gacantii imika ku haya isagina ana gacantii ku haya anigii ma shaqeeyo wallahi xaaladaydu ilaahay baa hortaala Yaasiin Cabdi Xasan ayaa bulshada muslimiinta ah meel kasta oo ay joogaan ka codsaday inay alla dartii u soo caawiyaan una soo duceeyaan bulshada muslimiinta waxaan ka codsanayaa inay walaalo muslimiinta inay caawiyaan dar ilaahay gu caawiyaan ay gacan siiyaan caafimaadkayga ayaan codsanayaa